Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya gaar ahaan xerada Xalani ayaa sheegaya inuu qarka u saaran yahay burbur shirkii ugu socday madaxda maamul goboleedyada dalka Soomaaliya oo shan ahaa. Wararka ayaa tibaaxaya in maanta oo loo ballansanaa inuu ka qayb galo shirkaasi ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu ka baaqday kadib markii maamulada Jubbaland iyo Puntland ay ka biyo diideen qodobo qaarkood kuwaasi oo ay soo gudbiyeen saddexda maamul goboleed ee kale. Axmed Madoobe iyo Saciid Cabdullaahi Deni ayaa horay uga tanaasulay dhowr qodob oo ay ka mid ahaayeen doorka madaxweyne Farmaajo uu ku yeelanayo shirkaasi iyo sidoo kale sugidda ammaanka goobta shirkaasi uu ka socday walow ay weli taagan yihiin qodobo kale oo muhiim ah. Madaxda ku shirsan xeyndaabka sida weyn loo ilaaliyo ee Xalani ayaa u muuqday maalmihii lasoo dhaafay kuwo isku laab xaaraya balse wararka maanta soo baxaya ayaa sheegaya in maanta uun loo gudbay qodobadii muhiimka u ahaa qabsoomidda doorasho ka dhacda dalka Soomaaliya taasoo muddo dhaaftay. Isku dayo ay sameeyeen beesha caalamka iyo saaxiibada siyaasadda Soomaaliya ayaa dhicisoobay kadib markii midowga musharaxiintu ay u gudbiyeen madaxda shiraysa in ay muhiim tahay ballaarinta shirkaasi si looga qayb geliyo guud ahaanba saamilada siyaasadda. Warar aan si hoose ku helay ayaa tibaaxaya in fashil uu qarka u saaran yahay shirkaasi oo lagu waday in maalinta berito uu ka qayb galo madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland Saciid Deni iyo Axmed Madoobe ayaa in muddo ahba ku sugnaa magaalada Muqdisho iyagoo iska diiday inay hor fadhiistaan madaxweyne Farmaajo ay ku eedeeyeen inuu sharci darro ku joogo xafiiska Villa Soomaaliya maadaama waqtigiisii dhammaaday. Waxaa jira shaki ballaaran oo ku aadan inuu jiro qorshe uu gadaal ka riixayo gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan iyo qaar ka mid ah xildhibaanada ku fikirka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaasoo muddaxileedka madaxweyne Farmaajo loogu kordhin doono muddo 2 sano ah walow maalinta berito loo ballansan yahay inay isu yimaadaan xildhibaanada Soomaaliya kuwa uu hore looga mamnuucay tiro xildhibaano 15 ah kuwa oo ka fikir duwanaa madaxweyne Farmaajo. Wixii ku soo kordha waxaan idinkugu soo gudbin doonaa wararkeena soo socda haddii Allaha uu daliyo ogolaado.